هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن، هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن، هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dhammaan muslimiinta meel walba joogtaan walaalayaal waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. وبعد السلام walaalayaal waxaan ku jirnaa bishii barakeysnayd ee Ramadaan, waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu barakaadkeeda na siiyo. sidoo kale walaal waxaan baraarujin lahaa in la iscafiyo oo qalbiga la iska sii daayo oo qofka kale uu cafiyo, lianna bishan waa bishii cafiska, waa bishii raxmadda, waa bishii maaragtay dambi dhaafka. sidaa awgeed walaalayaal inaan iscafino, qalbiyada la isu furo. aadanuhu waa maskiin, qof aan maaragtay dambi gelaynin oo khaldamayn ma jiro, ma khaldamo waa ilaahay. rasuulku sallallahu alayhi wasallam kullu ibnu aadam khadaa wa khayra khadaa'una tawaabuun. ibnu aadamkoo dhan wuu khaldamayaa, laakiin kiisa ugu wanaagsani waa kan markuu khaldamo khaladkiisa ka soo noqdo. sidaa awgeed walaalayaal waxaan baraarujinaynaa in la iscafiyo oo walaaluhu ay qalbiyada isu furaan oo niyaddu ay isu furaan oo khayrka bishan barakaysan laga faa'iideeyo oo ay qayb ka noqoto, maadaama aan ku jirno maalmihii ugu horreeyey. waxaa sidoo kale walaalayaal lagu jiraa waqti adag oo runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu ina tusaya imtixaan aad u fara badan. marka waxaan baraarujinayaa in dacwada maaragtay iyo ducada intaba la badiyo oo maaragtay la dhegeysto khayraadka, culummada lagu xidhmo oo khayrka laga dhegeysto oo qof waliba uu khayrka u degdego, lianna bishan waa bisha rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu aad khayrka ugu degdegi jiray.